gudoomiyaha degmada Boosaaso xubna ka socday shirkadda Linglon ganacsato hal door kala duwan ee maamulka sare ee Baxaya Group oo ah wakiilka Linglon ee deegaanada Puntland ayaa ka soo qayb galay xafladan ay isku arkayeen macaamiisha iyo soo saarayaasha noocyada kala duwan ee taayirada baabuurta. Xaaji Maxamed Maxamuud Barre mulkiilaha Baxaya iyo Master Hashim Maxamuud oo ah maamulka sare ee Baxaya Group ayaa sharaxay ujeedada saragan oo ay ku tilmaameen inuu muhiim yahay. haddaan idinka sheekeeyo taayirada anigu waxaan bilownay 1991 waxaan keen jiray 20 xabo wadanka markaa waxaa joogay gabadhiisii suuga iyo niisaanka lixda tan aawad garanaysaan iyo UDG 80 tan bis waxay qaataan waxay ahay wax yar 20 xabal keenij ilaahay mahadis maanta in bishii la dalbo 20 hotel waa isbedel weyn oo halka ka muuqda. Linglon waa warshad taayirka soo saarta ama lugaha baabuurta hadba ka u taqaanidiinba waa warshad caalami ahaan aad loogu yaqaan macruuf ah oo lagu bartay taayir tayo leh inay soo saarto. warshadani muddo 25 sano iyo ka badan bay taayiradeeda ku dhex iibinaysa dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland. warshadani adduunka waxay ku jirtaa kaalinta 12aad warshadaha taayirka soo saara. China waxay ku jirtaa kaalinta 3aad oo warshadaha taayirka soo saara. warshadan marka waxa lagu bartay taayir quality leh oo tayo leh. waxay ku taalaa 100 xarumo waxay ku leedahay 175 dal xarumaheedu ku yaalin. macaamiishii ka soo qayb gashay kulankan ayaa dhankooda bogaaday tayada wax soo saar ee shirkadahan oo ay sanooyin soo isticmaalayeen adeegyadooda kala duwan. waxay taayirka kaliya magada laakiin wax badan oo kale ayuu ka shaqeeyaa oo la xiriira gaadiidka baabuurta iyo wax badan oo kale taba aad baan u soo dhaweynaynaa ugana mahadcelinaynaa inay gartaan in ay mudan yihiin dadka ku xiran in la casumo. shirkadda Linglon dhammaan dadkan ganacsada ah oo ka shaqeeya jeebaartiyada ama ganacsatada kale ku jira ama gaadiidka ku jira way garanayaan tayadeeda iyo wanaagga ay ku soo kordhisay muddo badanna way shaqeynaysay oo sida dal sheegay ilaa 25 sano meelaha sida ka shaqeynaysay innaga ka shaqeynaysay Soomaaliya gaar ahaan Puntland xaajiga khayraadlahaas iyo dadaal badan buu geliyay. gabagabadiina duqa degmada Boosaaso Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Jina oo soo xiray kulankan ayaa bogaadiyay maalgashiga shirkadahan iyo doorkooda adeeg ee arrimaha bulshada. 我的军工朋友，欢迎光临波萨索，我们很珍惜，很高兴。aad baan u mahadsanyihiin ganacsada reer China. runtii farxad weyn bay tahay maanta inaan idiga soo qayb galo soona dhaweyno shirkadda Linglon oo maanta aan barasho u baahnayno shirkad deegaanka caanka ah xarunteeda Puntland ee magaalada ganacsiga joogana Boosaaso runtii tayo badan ku leh farad gaar ah ay sameynaysaa inaan ganacsadaada Maxamuud dadkiisu fadhiyo oo runtii ah ganacsada deegaankan wax badan u qabtay.